bini aadamka maxaa lagu qiimeeyaa marka la qiimaynayo la maamusayo leeyahay qofkani waa haliyey maxaa lagu qiimeeyaa umuuman bini aadamku wuxuu yidhaahdaa saddex shay baa wax lagu qiimeeyaa ama alcadama weynida bay leeyihiin qof leeyahay saddex shay baa lagu qiimayn karaa kow biاطibaaci wاlakhlaaqi wاlmazaaya shakhsiya waxa lagu qiimayn karaa bay leeyihiin sifaadka bini aadamnimo ee waa geesi waa deeqsi waa caynka yacni sifaadka qofka bini aadamka insaaniyadu ay leedahay waa lagu qiimayn karaa bay yidhaahdaan waxaa kaloo bini aadamka lagu qiimeeyaa bay yidhaahdaan injaasaadka alacmaal alcadiima waxqabadka ummad buu badbaadiyey waxaasuu qabtay waxaasuu keenay waxqabadkiisa waa lagu qiimayn karaa waxa saddexaad ee bini aadamka lagu qiimeeyaa waxa weeyaan bay yidhahdeen raadka uu bini aadamnimada kaga tegey intee qarni buu raadeeyey ma bulshadii uu la noolaa iyo qarnigii uu noolaayo qura qof raadayn kule buu ahaa mise taariikhda bini aadamka ee soo jireenka aan qof ku leh raadayn waa aahaar waa saddex qaybood oo wax loo qiimayn kara bay leeyihin in dhaqanka iyo akhlaaqda iyo miisaadka insaaniga lagu qiimeeyo in waxqabadka iyo acmaasha ka soo fushay lagu qiimeeyo iyo in raadku bini aadamnimada kaga tegey lagu qiimeeyo saddexda kaad ku qiimaysa bay leeyihin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one waxay yidhaahdaan cadamada marka la qiimaynayo dadka badh qoom buu weynida u yahay laakiin waxaa laga yaabaa qadarka uu kuwan wax u taray kuwo kalena inuu dhibay maalan dagaalyahannada nin baa dagaalyahannimo lagu qiimeeyey dee qoomkiisa wuu u guuleeyey laakiin qaar kale uu jebiyey baa jira bini aadamka o dhan wax ma wada tarine qaarna wuu u hiiliyey qaarna wuu ka hiiliyey waxaa jira bay dhahaan bini aadamnimada marka la qiimaynayo inay maxalli tahay raadayntiisa ama waxqabadkiisu inuu gobol ku kooban yahay qowmiyad min alqowmiyat inuu wax taray iyo inay tahay international adduunka o dhan inuu wax taray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihin biayi miqyaas aad wax ku qiimayso bashariyada dhammaanteed buu wax taray sida awgeed haddii akhlaaq iyo dhaqan la rabo bay leeyihin waa qof taariikhdu ay tilmaamayso inuu mutawaadic ahaa oo geesi ahaa dagaalyahan ahaa wax bixin jiray dulqaad badnaa sabir badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu tilmaamoo dhan saadiq ahaa iyo runsheeg badnaa ballan oofin badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu maamuusa bay leeyihin waa looga markhaati inuu lahaa hadday tahay raadayn waxay leeyihin caalamka ilaa maantay taallaa raadayntiisii oo wakhtiguu nebi moxamed yimi calayhi salaatu wasalaam wakhti aan laa xuquuqulinsaan walaa xuquuqulbini aadam walaa wax jira aanay jirin bay ahayd markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xajatulwidaac uu tilmaamayey bini aadamka iyo maamusnimadiisa iyo xurmada uu leeyahy aahaartu ka tegey bay leeyihin waa ta abuurtay xadaaradan dee islaamigaa dhammaanteed iyo dadka muslimiin ee dunida soo jiroo dhan sida awgeed ayi miqyaas wax lagu qiimeeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one walidaalik baa waxa uu qoray will durant waxaan filayaa inuu yahay laa adri agnostic yacni kuwan aan diimahaba rumaysanayn atheist maaha waa agnostic waa laa adri yacnii inuu jiro iyo inaanu jirin ma kala ogi anigu wax ma ogi baa la yidhaahdaa kaasi agnostiga ahi wuxuu leeyahay laba kitaabo waaweyn oo caano mid waliba dhowr iyo 10 volume yahay mid waa story of civilization taarikh alxadaara alinsaniya midna waa story of philosophy taarikh alfalsafa waa laba kitaabo volumes ah kitaabkiisan la yidhaahdo taarikh alxadaara ama story of civilization marka uu ka warramayo taariikhdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa وإذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدًا كان أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاق لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء
وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ. وحوليه هدين وينك ورنا يقف بن آدم ويندي وإنه قيمين الراتك وبن آدم ككجتجي نبي محمد وحي هيبولي كان أعظم عظماء التاريخ dadka ugu waaweyna taariikhda la tilmaamo kooda ugu sii weyn weeyaan buu leeyahay dadka ugu waaweyn cudamada taariikh markaynu meel isla dhigno cudamada ugu cadiimkooda ayuu ka ugu weyn yahay buu tilmaamay